الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دمان أحبابتها بوك نقل سعوتا وان وذا السلامي رونهانتي waxaan noo soo socday darsi silsilada waan kaga hadlaynay taariikhda deegalkeena gaar ahaan gobolka City iyo xiriirka taariikheed ee uu leeyahay deegaanka Canfarta uu leeyahay ayaan ka soo hadlaynay waxaan ka soo hadlaynay mowduucyada taariikhda marka ujeedada aan uga leenahay waxa weeyaan in bulshadeena lagu wacyi geliyo qiimaha ay leedahay taariikhdu bulshadeenu hadii umadu ay noqoto hadii loo baahan yahay bulshadeena in isbedel lagu sameeyo bulshada in la bedelo marka la rabo waa in taariikhdeeda la baro taariikhdeeda waa in la baro bulshada aanan taariikhdeeda aqoonin kuma fakari karto isbedel maxaa yeelay ma garanaysa meesha ka imatay halka ay taagantay meesha u socotana marka aad meesha ka imatay garanaysay waxa tusaysaa halka aad joogtid meesha ka imatay baa ku keentay kadibna haddii ay dhacdo in aad horoos dhaqaaqi weydo oo ay kugu dhacdo inaad joogsi hadduu kugu dhaco waxaad ummaddu taariikhdooda dib ugu laabantaa oo jaftaa ummad dhalinyarteedan ku dhiiri gelisaa si maaragtay muxuu ahaa loogu dardar geliyo dadkani in ay isbedel sameeyaan waxaa marka taariikhaha ummadaha marka looga sheekaynayo waxaa ujeedada waxa leeyahay amjaadul umma wax la dhaad guulihii ummadani ay lahayd in lagu xidho waxay ku tusaysaa in mustaqbalkan aad geesi noqon karto shalay haddii adigu degalkaagan aad star ka ahayd lagu soo mari karin wax kasta adin laga weydiin jiray maantana aan cidiba waxba ku weydiinay si aad arintaasi uga galgalato waxa weeyaan waa inaad bulshadaada iyo barbaartaada aad ku soo barbaariso ubadkaaga qiimaha ay taariikhdoodu ay leedahay waa muhiim wax weeyaan maxaa yeelay ummaddu haddii aynan taariikhdeeda waxba ka garanayn waxay noqotaa ummad loo taliyo kow waa lagu talin waa la isku kaatiri marka la isku kaadiro ee lagu taliyo waxa khayraadkaaga iyo resource-ga aad haysato waxay noqonaysaa tul adeegsada ay noqonayaan haddaba taa anagoo ka duulayna waxaan soo sheegnay darsiyadii tan ka horeeyay waxaan ka soo hadalay lahaanshaha dhulka iyo sida Canfarta iyo Soomaalida gaar ahaan beeshan galbeedka City degtay dhulkan inay weligoodba dhul ay deganaayeen ay ahayd dadkan in dad had iyo jeer wada deganay ahaayeen waxay dadka qaarkood u haystaan marka inaan hadalladan iska leenahay waxaan markaan hadlayno waxa weeyaan waxaan ku hadlaynaa annaga oo soorsigii aan hadalkan ka keenay tibaaxayna ayaan hadlaynaa tusaale waxaan noogu filan waxaan anigoo baadhaya arrintan oo aad u baadhayo oo baadhitaan sameynaya ayaa waxaan sameeyay buugaag cusub ayaan isku dayay inaan maaragtay aan raadiyo waxaan helay buug la qoray qarnigii 19aad 1870kii waxaa qoray waxa la dhahaa buugaasi The Earth and its Inhabitants The Universal Geography yaa la yiraahdaa dhulka iyo dadkii degan dadka maaragtay degan buu ka hadlayaa marka degal kasta markuu tago dadka uu degalka ugu yimiday ee asal ahaan deganaa buu ka sheekaynaya marka buugan waa volume weyn oo ilaa 20 volume ah oo laakiin qaybteenan markuu ka hadlayo qaybtan bariga iyo waqooyiga ayuu hal buug isku soo qabtay qaybtaas markuu ka hadlayo ninka ka hadlaya aqoonyahankaasi aqoonyahan Faransiis ayaa ka hadlaya ninka taariikhyahanka Faransiiska ah ee geographerka ah magaciisa waxa la yiraahdaa Élysée Reclas baa la yiraahdaa waa Élysée Reclas baa la yiraahdaa buugan qoristiisa waxay ka qaadatay 20 sano ka qaadatay buugan qoristiisa marka qowmiyaduhu sheegaya wuxuu ku sheegayaa meelaha markuu danaakisha ka waramayo ee uu ka waramayo sidaas la mid ah uu ka waramayo gaalaaga markuu ka waramayo ayuu dhexdeeda wuxuu soo qaadanaya Soomaaliis intuu Soomaalida yiraahdo ayaa wuxuu soo qaadanaya qabiilka Ciisaha la yiraahdo soo qaadanaya wuxuu leeyahay qabiilkani israhan dhaqan ahaan iyo xiriir ahaanba waxay aad maartay maxay dhadaya isku xigaan qabiilka danaakisha la yiraahdo mise Canfarta la yiraahdo ayay isxidhaan wuxuu yiri labadan wuxuu leeyahay waa two powerful nation buu leeyahay waa laba qowmiyadood oo xoog leh ayuu tilmaamay waa war like nation buu ku tilmaamaya inay yihiin dad dagaal jecel oonan dagaalka aanan maartay maxay dhadayay aanan loo sheegin waxaana arintaas ku cadeynaysa heestina maxaa jaamaci ahayd geeshka iyagu libaxsana hadii dirir loo lululo miyay laabtaan gacmaha ninkoogu lix buu dilaa 20 haday yihiin kunbay laabto dhigaan arintaas war like nation inay yihiin buu tilmaamay marka wuxuu sheegay qowmiyadaasi halkay degtaa buu leeyahay Soomaalida jilibka Soomaalida waxay degaan buu ku leeyahay inta u dhaxaysa khaliijka Tajoora ilaa iyo Harar laga gaadho dooxooyinka webiga Hawaash buu leeyahay dooxooyinka webiga Hawaash ayuu tilmaamaya marka uu ka hadlayo marka waa 1850kii 60kii
وين waxa uu sheegay waa approximately muddo 180 sano ka hor ah daraasad la sameeyay wax yar oo shalay 30 sano 40 sano heshiisyo la galgalay iyo waxa in laga sheekeeyo waa meel yar oo dhow waxaan ka hadlaynaa ninkaas buugaasi uu ka hadlayo marka taasi markaan ka imano lahaanshaha dhulka iyo waqtigaasi maadaama dadku saa u wada noolaayeen sidaa wada ahaayeen wuxuu ku leeyahay labadan qowmiyadood waxay ahaayeen laba qowmiyadood oo kuwa isugu dhow ah isbahaysi bay lahaayeen waxa iyaga iskaashanayay buuri markay abaari ay ka dhacdo dhinaca ciisaha waxay iman jireen xagga canfarta ayay soo guuri jireen oo la degi jireen oo la soo dhaweyn jiray canfartu markuu roob la'aan ku dhacdana way soo guuri jireen oo deegaamada waxay soo degi jireen ciisaha ayay soo degi jireen ayuu tilmaamaya iyo guud ahaan oo tilmaamaya marka dadka sidaas ku dhex gashan ay ahaayeen laakiin dadkan isdhex gashan ee sida u wada noolaayeen nabadda ahaa marka qaar biyo iyo beed waa la isku diriiri jiray xeer iyo nidaam nabadgelyo oo lahaayeen bay had iyo jeer ku heshiin jireen laakiin maxaa sababay inaan dambe in dagaalkii nabad loo waayo xal loo waayo maxaa sababay arrinta sababta waxa weeyaan runaantii marka laga hadlo waxa weeyaan waa maamulkii Itoobiya kala dambeeyay baa ayaa arrintan sababay Soomaalida iyo aragtida laga haysto waxaa la ogaaday dawladda Itoobiya cidda iska maartay riixi karta amoles qoladan Abyssinian-ka la yiraahdo u yeedhin karta ama maartay maxay dhadaayay ku challenge gareyn karta maamulka Itoobiya inay tahay dadka Soomaalida kaliya marka meeshan waxay garanayaan laba taariikhood bay marka had iyo jeer marka qofka Soomaaliga la yiraahdo xasuusto laba taariikhood ma marka maskaxdu ku soo dhacaysa Axmed Guri qarnigii 16aad iyo Siyaad Barre maartay dhamaadkii qarnigii 20aad wixii dhacay ayaa ku soo maartay maxaa maskaxdooda soo galaya marka waxay aaminayaan aragtida oranaysa dadkani waxay maartay maxaa dhadaayay bari ka maalin Soomaaliya intay qabsato haddii hawaash ay degto waxay ka dhintay caasimadeennii bay jaar la noqotay taasi waxay ka eegeen marka arrinta geopolitical la yiraahdo ayay ka eegeen oo ay leeyihiin waxa u fududaanaysa Soomaalidu inay maadaama meeshan xuduntii ay tahay in ay weerari karaan ama deegaanka Amxaarta deegaanka Oromada deegaanka Canfarta ka Tigreega Itoobiya meesha ay rabaan bay qalqal gali karaan saa darteed waa in xagga bariga lagu soo diri dhabayo wixii ka shishaysa lagu soo ururiyaa ayay leeyihiin aragtidan marka hore iyagu aaminsan laakiin haddana inay ficil isku bedesho waqtiyada ay bilaabantay ugu muhiimsan waxay ahayd waxaad garanaysaa waqtigii Xayla Salaasa oo soo laamay Xayla Salaasa dadkii baxsadkiisa iyo inuu la bixiyo qaybta ka ahaabaan ahayn ee badbaadintiisa maarta maxaa qaybta ka ahaa waxaad garanaysaa in xitaa niyad wanaag Xayla Salaasa laftirkiisu lahaa oo heshiiskii gawaani aan ku sheegay 1943 dhacay si xor ah dadkan la heshiisiyo meel heshiisku in gawaani ha looga dhigal halka ayaa maarta maxaa dhacay la isku haystay laakiin maxaa dhacay arrintan maxaa goorma isbedeshay waxay isbedeshay iyadoo sidaa la leeyahay oo arrintu halka ha marto la isku yaqiinsan yahay ugu dambeyntii markii dambe waxa lagu sameeyay recycle waxa lagu sameeyay dib u habeyn baa maamulkii Xayla Salaase lagu sameeyay marka qabiilka Oromada Karayuga la yiraahdo Karayuga kuwa la yiraahdo ciisaha iyo maarta maxaa dhacay adaaliska kuwa ay yiraahdeen oo waqtigaas loo yaqaanay danaakiisha loo yaqaanay ayaa maamul loo sameeyay caasimadoodiina waxa la keenay halkan afdan baa la keenay maxay taas ku tusaysaa marka halkee laga soo raray shalay waxa heshiisku ahaa in la keeno waxa weeyaan maartay gawaani afdan mise isku jirta waa 120 kiilo waxa isku jirto 120 kiilo ayay isku jirta ka bacdi maxaa la yiri iyada sidaa tahay laakiin maamulka saddexdiiba la mideynayo meel quraatay hal laga dhiga leeyahay ayaa waxa dhacay geopolitigu waqtiyadii dawladii Talyaaniga la jabiyay waad ogtihiin geeyigan Talyaaniga markii la jabiyay koonfurtana laga la wareegay meesha dhinacan kale Eritrea oo Ingiriis ka qaatay Ingiriiska isaga oo ololeenay waxa la oran jiray Great Soomaaliya oo weyn baa sameyn buu ku sameyn jiray Soomaalida marka waxa jira Soomaalidii dagaladii ay kala deganeed oo dhammaantood waxa la nin kasta bal codsigiina halka inaad ku biirtiin inaad rabtiin soo gudbiya ayaa la yiri waqtiga sidaas la yiri marka degalkan gobolka City oday dhaqameedyadii waqtiga noolaa oo tira ahaanba aan ku qiyaasno ilaa iyo 15 oday sida aan buugaagta aan baadhnay archive-yada Faransiiska oo kale ka soo helay ay tibaaxayaan Ingiriisku ay tibaaxayaan marka duqeydii iyo ndargaradkii beesha Ciise intay isku imatay ayaa waxay yiraahdeen annaga Itoobiya wayna duluntaa gobolka yagii saddex baan u qaybsanay qayb Djibouti baan la raaciyo Faransiis qayb Ingiriis qaybna Itoobiya
xoolaha yagii inuu isku gudbo dhib bay nagu tahay ganacsigaygu nagu adag yahay gumaysi baan na haysta marka gumaysigan madow ma karayno annaga saddexdeedaba intoo la mideeyo Soomaalida mid ah hana lagu daro qoraal ay leeyihiin ayay qorayaan marka ay ka cabanayaan anagu halka bana waliba waxay leeyihiin caasimadeeduna waa Harare nagama go'i kartee iyadana hana la soo raacay haddaan yeeriyo tusaale ahaan 15kii qoraalkaas saxeexay waxaa kamid ahaa Ogaas Xasan Xirsi aadan ragga garanaya kulli soo sheegi doono dhow aadan Kawaale Xaaji Ismaaciil Nuur Xaaji Ismaaciil Cawaale Cali Abubakar Xuseen Cusmaan Axmed Qayd Xaaji Cabdi Cali Bulaale Caynaanshe oo Bulaale Wanjalaanu naqaanay Cumar Geele Calaawi Kaamil Caaqil Cali Boqorre kaadi Doonaale Ciisa Xaaji Ismaaciil Ibraahim iyo Cabdalla Gadiid intaas waxay markaa dadkii waxa saxeexay qoraalkii markaa waxa loo geeyay muxuu ahaa waxa loo geeyay saad wada ogsoontihiin Xayla Salaase iyo heshiiska soo qoreen baa loo geeyay dadkan waxay rabaan inay go'aan maalinta wixii ka dambeysay taariikhdii way isbedeshay dadkan sidii loola dhaqmay si ka daran ayaa loola dhaqmay waxa la bilaabay hadii toole in qorshe la qaato in laga soo ururiyo halka ay degan yihiin oo la isugu keenay ilaahay hoos ilaa dirba lagu soo xaaro arrintaas marka iyadoo sidaa tahay bay 60kii haddana waxay qaateen Soomaaliya xornimadii Soomaaliya qaadatay xornimada Soomaaliya marka ay qaadatay Soomaalida waxa la yiri hal laga soo ururiyo gawaaniya dhinacanba hal la isugu keeno erar iyo jiidan hal la isugu keeno baa la yiri xaqana lagu soo ururiyo ilaa iyo inayna dhaafin halkan caasimadu ay tahay afdamiyayna dhaafin dagaal iyo xasuuqi fara badan baa loo geystay arrintaas marka Soomaalidii city way ka dhiidhista dagaal badan oo galeen kadib xasuuqi waaweyn baa iyagana loo geystay waxa kamid ah xasuuqi ay shaca arrintan darteed ayuu maartay maxaa dhacay u dhacay arrinta marka iyagoo culayska ay leedahay markay arkeen arrintaasi Soomaalida inay soo qoysanaysay dawlad madax banaan bay heshay dadkan inay ku biiraan ay ka baqayaan ayaa goobtii maxaa dhacay Hawaash ay deganaayeen ilaa iyo Matahara ay deganaayeen ba waxa la yiri waa in laga dhigo meel maxmiyad ah oo lagu ilaaliyo duurjoogta Mizazuga dadkii halka deganaato la soo guray oo la soo xaaqay ayaa waxa lagu soo shubay afdan baa lagu soo shubay iyo diridhaba ayaa lagu soo shubay taa markay tahay waa 60kii waxa aan sheegayno dagaaladii hadii toolay xasuuqii iyo barakicintii ayaa markasta maartay maxaa dhacay ayaa markasta sii socday sidan aan maartay maxaa dhacay ni sheegayno bilowgii bal waxaad garataa 1947 afdan baa la keenay iyaga iyo Karayuga iyo waxa la isku daray muxuu ahaa canfarta haddana erar baa loo soo qaaday canfartii waxa la isku keenay canfarta Adaalis Isa iyo Gurgura Isana gaara Guraja Awraja baa looran jiray 1955kii halka ma dhaafi kartiin baa haddana la yiri haddana maartay markii dambe intoo la soo qaaday baa dhamaantood sida u dhanyihiin baa waxa la isugu keenay xagan iyo diridhaba ma soo dhaafi kartiin baa ayaa la isugu keenay intaas oo dhan marka waxa looga golaa in dadkani laga fogeeyo meesha Itoobiya saameynta ay ku yeelan karaan arrintani marka dadkani mayaga si dhaba isku haysto taariikhiyan isku haysta baadiye biya marka hore la isku haysan jiray laakiin xaqiiqdan in siyaasad loo bedelo waxa qaatay dawladda waliba mililiga waqtigiisii ma ahayn mililiga isagu maarta Soomaalida maadaama uu dhulbalaarsi badan u haystay uu basasabay laakiin Xayla Salaase ayaa arrintan kow ka aha waxa la tilmaamaa wariye aw gaal mooday isagu kristaan mooday oo muslim ah ayaa u tagay Xayla Salaase wuxuu ku leeyahay waryaadahe war dadkan dagaalkooda la kari leeyahay 100 nin iyaga Soomaalida ka soo qaad oo ciisaha ah 100 ila cafartan ka soo qaadno min Hawaash ilaa iyo diraba inta ka dhaxaysa hal lagu daldalo oo dadku ku tusaale qaataan saamxadu sameeyay laadin bukuud xuuri maartay indhaha intuu guduudiyo carooday buuri waar dadkan buuri muslimiinta maanad ogeyn buuri laga soo bilaabo muxuu ahaa goboladan Wallo ilaa iyo maartay maxaa Itoobiya dhinac kastiba dadka ugu badan maadaama ay yihiin hadii wacigoodu ay nabad nagu helaan soo shaqaysan maayaan oo aqoon biirsan maayaan aqoonta markay biirsadaanna soo xuquuqdooda weydiin maayaan dhulkan nagu sheegan wadan islaamnimo noqonayo waar waxa inaan hadii jeer saystaan oo isku diro ayaa anaga dan noogu abuud arrinta mar kale mar dhaweyd oo dhexdaaya sanada ka hor ah waqtiyadii ay aadka la isku haysan jiray ayaa waxa dhacday in iyadana sidaas oo kale si lamid ah culimo muslimiin oo walla ka socotay ayaa tiri bal dadkan muslimiinta ah aan heshiisiino bal xaaladu soo socotana aan eegno arrintaas marka maxaa ka dhashay waxay sameeyeen markay yimaadeen cundufiya cadiita baan imanay nin raggi kamid ah ayaa la kulmay isla markaa anagoo joogno dagaalkii bilowday buu ciidankii qaranka Itoobiya way joogaan ciidankii qaranka Itoobiya oo jooga halkaasi iyo dadka islaynaya waddanka meena Itoobiyaan hayn maad kan celisiin baan ku niri wuxuu yiri intay yiraahdeen
annagaa dadkan qorshihii oo isku dirnay oo waxaan u samaynay bay yidhahdeen waxaana sidaa u yeelay in waa waraabayaal buuli haddii aan iyagu isku mashquuliyo is cuni waayaan annagayna cunayaan marka inta annagana cuni lahaayeen iyagu ha is cunaan ayay maaragtay maxaan dhahdaay qaabkaas ay sameeyeen marka maxay sameeyaan in dadka muslimiinta ah la isku diro oo midba midka kale lagu jabiyay waa siyaasad iyo istaraatiijiyad Abyssinianku ay dhigteen si Ethiopia muslimiintoodu ayna quwad u yeelan aynan wadankan maamulkeega iyo aayahooga iyo dhulkooga inay ka tashadaan ayna maaragtay maxaan dhahdaay aanan maaragtay maxaan dhahdaay aanan waxba laga qaban arrintaasi markaas sidii loo waday waxaad garanaysaan ugu dambeyntii xasuuqii geete 1972 in la yiraahdo dibaabaad baa laga soo qaaday xagga ilaa iyo wabigi intoo laga soo qaaday baa ayaa lagu shubay ilaa iyo ay shacab lagu shubay ya oo xasuuqii geete baad garanaysaa geete laakiin waa masaa'ibu qowmin cinda qowmin fawaa'idu waxaad moodaysaa waxaad nasiibo rubba dharratin naafica baa la yiraahdaa waxaad dhib moodayso dheef noqotaa jira dadkan inaanan xasuuq lagu baabi'in karin bay ku tusaysaa geete ayaa lala kulmay mar dhexdaaya hawaash mar hore bal waran baa lagu yiri wuxuu yiri maanta hadaan moodayay buu yiri inay dadkani cawaanka ahaa anagoo barigiisa iskaga daynaan oo dhaantay dadkii aan farxinaynay dibadaha iyo magaalooyinka galeen ay wax soo barteen maanta dawladay sameysteen buu marka anagoo cawaanimadooda ku dayno oo saa ku maamula ayaa loo qaatay bay laakiin maxaa dhacay dulmigii badnaa in boqortooyadii markay cadaaladii ka tagtay dadkeedii dulmiday 27 kiiba xasuuqan dhacay 74 kiiba Xayla Salaase inuu meesha ka tagay xitaa xasuuqii hore ee Xayla Salaase oo 60 kii sameeyay afgambi baa ka dhacay isla markiiba maartay maxaan dhahday Addis Ababa maartay 60 kii ka dhacay afgambi seeway adar gubato abeed ma jirtay ilaah ma u aaray ay shacbi odayadii maartay maxaan dhahday Soomaalida halka deganay ay oran jireen marka Addis gubato abeed ma jirtay ilaah ma u aaray ay shacbi oran jireen Addis baan ka wadaa carabka iga xaday markaas taas baa yeeyna tusaysaa ilaahay waa maartay tusaale lagu siinay markuu ka sii darayna 74 waa ka isaga laftirkiisii meeshiisii lagu dilay cid ka soo dulmiga samaysa marka intaas oo dhan baa la isku dayay maanta ilaa iyo haddadan aan sheegayno dhulkii lagu xasuuqay dhulkii waa la sidii baa loo joogay Xayla Salaase isku dayay inuu baabiyo kari waayay dargigii isagu 77 maadaama oo Soomaalidu dagaal ay ku soo qaaday inuu tirtiro isku taglay dadku halkii bay joogaan matahara iyo inta dhulka oo dhan maanta xoolo geelini baa daaqa geelini baa ilaa hadda daaqay lama karayo dadkan qofku meesha waxa qulay waliga lagama qaadi karo marka waxaan uga jeednaa walaalayaal inaan iska soo koobnay taariikhda baan leenahay lagdankan iyo siyaasaduna qaabkaaba socota inaan qaabka ula soconno waxaan noo hadhoon kadib waqtigan dargigii ilaa iyo dawladdan aan joognana taariikhda iyo siyaasadkana lagu hagay qaabkayba ahayd kadib maxaa xal noo ah inaan qaybaha dambe kaga hadalno aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh